kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka Universal Studio magaalada Muqdisho ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka caalamka. 8 ka mid ah xisaabta siyaasadda dalka ayaa si ku meel gaar ah maanta loo aqoonsaday munaasabadii lagu aqoonsanayay waxa goobjoog ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. maamulka galmudug iyo kan ahlu sunna ayaa heshiis waxay ku kala saxiixdeen magaalada Djibouti ee dalka Djibouti muddo wada hadallo halkaas uga socday labadaasi dhinac. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ayaa cambaareeyay duqeyn dad rayid ah ay ku waxyeeloobeen oo la sheegay inay geysteen diyaaradaha dalka Mareykanka oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose iyo maalinta naafada adduunka oo laga xusay qaybo ka mid ah Soomaaliya. akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid noqon doona xulafada Sacuudiga oo soo dhaweeyay Cali Cabdalla Saalax oo ka soo horjeestay Xuutiyiinta. oo diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan goordhow waxaan idila socodsiin doona anoo ah Maxamed Cabdinaasir Ayaanle. markale kulanti wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal warkiyo dhan 8 ka mid ah xisaabta siyaasadda dalka ayaa maanta si ku meel gaar ah loo aqoonsaday munaasabadii xisaabtaasi lagu aqoonsanayay waxa goobjoog ahaa gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari sidoo ku waramayo wariyaheena Cabdicasiis Ibraahim Axmed. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa si ku meel gaar ah u aqoonsaday qaar ka mid ah axsaabta siyaasadda ee dalka ka jira 8 ka mid ah xisbiyada siyaasadeed oo qaarkood xildhibaano baarlamaanka ah ay leeyihiin ayaa si ku meel gaar ah loo siiyey shahaadooyinkoodii aqoonsiga. munaasabadaasina waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Xalimo Ismaaciil Ibraahim Xalimo Yare. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa sharaxaad ka bixisay aqoonsiga xubno ka mid ah axsaabta siyaasadda ee dalka Soomaaliya. si doorasho loo sameeyo dadkii wax dooran lahaa oo is dooran lahaa in la helo cod bixiye diiwaan galsan inaan helno oo wax doorto inaan helno ayadana aad muhiim u ah asagana waa haysanaa dadkii codeynaya waa sheegnay dadka codeynaya u codeynaya marka u jeedin xisbigu lafdhabar u yahay doorashada waana midaan maanta u fadhino inaan xisbiye sharciyeeno si doorasho loo galo waxaa tilaabaan ugu soconaa muxuu ahaay doorashada midda kale oo muhiimka waxa waa meeshii lagu codeyn lahaa in la haysto dhul in la haysto. xubnaha axsaabta ee aqoonsiga ku meel gaarka ah la siiyey ayaa dhankooda tilmaamay muhiimadda ay leedahay in nidaamka axsaabta lagu howlgeliyo dalka. maanta waa maalin farxad leh oo qiimo leh waa maalin dhulkeena uu horumar sameeyey taariikh ah waa maalin aad iyo aad loogu baahnaa si aynu uga gudubno dhibaatooyinka inaga haysta qabyaaladda. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guleed ayaa tilmaamay in dowladda doorashadeedii madaxda qaranka ballanqaadkoodii oo ahaa in axsaabta wax lagu soo dooran doono sanadka 2021 taasina tilmaamteeda ay muuqanayso. waa tallaabo hore aynu u qaadnay oo ka turjumaysa ballanqaadkii madaxweynaha ku talagalkii madaxweynaha lagu doortay golaha shacabka Soomaaliyeed iyo aqalka sare ku doorteen ku talagalkii iyo ujeedooyinkii xukuumadda ee ahaa sanadka 2021 in aynu suurto gelinno hirgelinno doorashada hal qof iyo hal cod iyadoo aynu ku xisaabtamayno xisbiyo siyaasadeed oo madax bannaan. guushaas aynu u soo halgamaynay iyo geedi socodka daahfurkiisii maanta ilaahay waa inagu simay waa inaga u wada joogna. ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa aqoonsiga qaar ka mid ah nidaamka axsaabta siyaasadeed ka dhawaajiyay inay tahay xilli loo baahan yahay. mudanayaal marka aan isweydiino axsaabta siyaasadeed maxaanu ka doonaynaa jiilka aniga aan ka mid ahay 70 jir baan ahay xaggan u dhaaf markaanu dhalinyarayn waxaana soo barbaariyay axsaabta siyaasadeed. axsaab siyaasadeed annagoo iskool elementara dhiganayno ayay noo iman jireen oo ina oran jireen madaxdii beriyaa tihiin dalka waa in la mideeyaa shanta Soomaali waa in la mideeyaa ilaa aakhiri. mudanayaal axsaabta siyaasadeed maanta u baahan dhalinyaradayna maanta ay uga baahan tahay in axsaabta siyaasadeed ay noqdaan dugsiyadii lagu abuurayay muwaadiniinta Soomaaliyeed wadaninimo loogu abuuri lahaa maanta axsaab siyaasadeed ka jira. marka axsaabta siyaasadeed maanta oo marta ururadan oo hadda
himiladooda ay tahay inuu ku tookahay inay xisbi siyaasadeed noqdaan waa lagama maarmaan inay sameeyaan garab dhalinyaro waa lagama maarmaan inay sameeyaan garab haween waa lagama maarmaan inay sameeyaan garab waxbarasho. cabdicasiis ibraahim axmed okey TV-ga Universal magaalada Muqdisho. maamulka galmudug iyo kan ahlu sunna wal jamaaca ayaa heshiis waxay ku wada gaareen magaalada Djibouti ee caasimadda dalkaasi Djibouti muddo wada hadallo halkaasi uga socday dhinacyadaasi sidoo warkan ku soo waramayo wariyaheen Axmed Cabdikariin oo ku sugan Djibouti. maamulka galmudug iyo kan ahlu sunna wal jamaaca oo maalmahan wada hadal uga socdeen wadanka Djibouti ayaa maanta si rasmi ah u kala saxiixday heshiis labada dhinac dhaxmaray. heshiiskan dhaxmaray labada dhinac ayaa waxa kala saxiixday madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ahlu sunna wal jamaaca Sheekh Maxamed Shaakir. kadib wada hadallo dhowr maalmood qaatay labada dhinac waxay ku guuleysteen inay soo gabagabeeyaan ismariwaagii u dhaxeeyay mas'uuliyiinta labada dhinac. madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale gobolada dhexe ahlu sunna wal jamaaca Sheekh Maxamed Shaakir ayaa munaasabadii heshiiska ku kala saxiixdeen warbaahinta la hadlay. mas'uuliyiinta labada dhinac maamulka galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca ayaa kadib markii heshiiskaas wada galeen waxaa guriga madaxtooyada wadanka Djibouti ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Gelle. kulankaasi kadib ayay warbaahinta tafaasiil ka siiyeen waxyaabihii ay madaxweynaha isla soo qaadeen iyo hadda wax kale oo madaxweynaha waxaan ugu nimid sanad sharaf waan soo salaanay madaxweynaha waan ka wada hadalay arrimaha in gacan la siiyo ciidamada iyo tababaradooda iyo wixii la kale laga siiyo wax kale badanna oo hoosana waa jiraan laakiin hadda halka sheegi maayo. waxa weeye heshiiska waxaad ogtahay waqti dheer meesha ma aanan joogin waqti gaaban aan joognay isafgarad fiican ayaana ka dhacay meesha heshiis aad iyo aad yani looga fakeray ayaa meesha ka dhacay khaasatan haddii aan nahay annagu maamulka gobolada dhexe runtii tanaasulaan muujinay waxaanu u muujinay shacabkeenna ayaan u muujinay waxaana rajaynaynaa biidni illaahi alkariim inay isku meel u jeestaan una midoobaan cadowgooda. maamulka galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca ayaa munaasabadii heshiiska ku kala saxiixdeen waxay ka sheegeen in waxyaabihii ku heshiiyeen oo faahfaahsan kadib markay wadanka dib ugu laabtaan ay warbaahinta u sheegi doonaan. Axmed Cabdikariin Maxamed Universal TV Djibouti. wararka la xiriira dalka Djibouti ayaynu ku guda jirnaa. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Djibouti ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay arrimaha farshaxanka iyo sidoo kale hidaha iyo dhaqanka dalkaasi Djibouti oo ay soo qaban qaabiyeen ganacsato Djiboutiyan oo halkaasi ku sugan sidoo ku soo warramaya mar kale Axmed Cabdikariin oo Djibouti jooga. ra'iisul wasaaraha wadanka Djibouti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa maanta furay carwo ganacsi oo lagu qabtay caasimadda wadanka Djibouti. carwadan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya shirkado dhinaca ganacsiga ka shaqeeya iyo ganacsato kuwaasi oo ka kala yimid gobolka Geeska Afrika iyo waliba qaybo kala duwan oo ka mid ah caalamka. shirkadaha dhinaca ganacsiga ka shaqeeya wadanka Djibouti iyo ganacsatada wadankaasi ayaa waxay ku soo bandhigayaan carwadan fursadaha ganacsi ee wadankooda ka bannaan iyo waliba wax soo saarka wadankaasi. bandhigan ama carwadan oo soo qaban qaabiyo guriga ganacsiga wadanka Djibouti ayaa socon doonta muddo 5 cisho ah waxaana muddadaasi ay shirkadaha kala duwan ee wadanka Djibouti ee dhinaca ganacsiga ka shaqeeya ku soo bandhigi doonaan waxqabadka shirkadahaasi iyo waliba wax soo saarka wadanka Djibouti si ay shirkadaha caalamiga ah ee ka qayb qaadanaya carwadaasi ugu soo bandhigaan waxyaabaha wadankoodu hodanka ku yahay ama soo saaro. waxaana sidoo kale carwadaasi lagu soo bandhigay ciyaaraha kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka ee qoomiyadaha kala duwan ee wadanka Djibouti. furitaankii munaasabadaasi kadib ayaa gudoomiyaha rugta ganacsiga wadanka Djibouti oo xaruntaasi madaxda u yahay soo qaban qaabisay bandhigani ayaa warbaahinta tafaasiil ka siiyay. waxa weeyaan carwadii ugu horeysay Djibouti ka dhacda waxaan rajaynaynaa inay dadka reer Djibouti rag iyo dumar cirooli aananu ay ka soo qayb galaan. shirkadaha adduunyada ka yimiday iyo shirkadaha Djibouti degan gaar ahaan kuwa wax soo saara kuwa wax iibsha kuwa wax soo waarida ee dibadda ka keena yaan isugu keennay iyo dhaqankeennii dadkii dhaqanka iibinayey farshaxanka iibinayey waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay si fiican noogu dhacdo. saaka waa ninkii arkayo si fiican bay noogu bilaamatay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa ilaahay khamiista inuu si fiican oo nabad ah oo xasiloon ay noogu dhacdo. dadkuna waxaan ka arkaynay dee sidaan u arkayo imka reynreen iyo wacnaan dadka
soo jiidanaysa oo aan isleenahay waxbay ku soo kordhin karaysaa waddanka siyaasadda madaxweynahana garab galaysa. sidoo kale waxaan iyana wax ka weydiinay dareenkooda qaar ka mid a shirkadihii ka qayb qaadanaya bandhigaasi dhinaca ganacsiga. East Africa Bank waa baan islaamiya, waa baan local ama maxalliya, waxyaalaha uu daneeyo ama uu ka qayb galo waxa ka mid ah in taageerada bulshada qaybaheeda kala duwan, qaybta maalgelin u baahan iska soo celin kara sanada uu maalgeliya, qaybta yarna wixii uu la qaban karayo iyo la qabtaa oo itaalkeeda ayuu kor soo qaadaa. sidoo kale in waxa kale uu ka qayb galaa adeega bulshada ayuu ka qayb galaa sida jimciyadaha iyo associationyada sponsor buu sameeyaa in ciddii maaragtay dhalinta wax ina qabsato doonaysa. ka socdaa Zainab Cabdi Axmed baa la yiraahdaa, waxaan ka socdaa shirkadda Cabinet Ashilbi Djibouti, waxaan ku xiranahay Ashilbi International, baan ku xiranahay kulka waxaan ku shaqo leenahay, waxaan ku takhasusnay xisaabiyaanka, xisaabaha hata audit hata fiscalité hata waxa li wuxuu baahantiin waan shirkadda ku xirantay waxaan weydiistaan waa ka soo qabanaa walaal. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Djibouti. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ayaa cambaareeyay duqeyn la sheegay inay ku dhinteen dad rayid ah oo fuliyay diyaaradaha dalka Mareykanka. xildhibaanadaasi ayaa waxay boqdeen qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay oo la soo gaarsiiyay magaalada Kismaayo. Mascuud Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa warkan inoo soo diray. Droniska ee Mareykanka ayaa duqeymo ka fuliyay deegaano hoos imaada degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. duqeymahan waxaa ku dhaawacmay dad rayid ah oo ku sugnaa meelaha ay duqeeyeen diyaaradaha droniska ee Mareykanka. Isbitaalka degmada Kismaayo ayaa waxaa maanta la soo gaarsiiyay qaar ka mid ah dadkii ku soo dhaawacmay duqeymahaasi, waxaana isbitaalka booqday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ayagoo diyaaraduhu Mareykanku ay ka fuliyeen gobolka Hoose, gaar ahaan deegaano hoos imaada degmada Afmadow, kuwaas oo dad rayid ay wax ku noqdeen. xildhibaanadu waxay ka codsadeen saaxiibada Soomaaliya sida Mareykanka inay iska ilaaliyaan meelaha ay duqeynayaan, isla markaana aan shacabka Soomaaliyeed dhibaato loo geysanin. Jubbaland waxaanu maanta soo booqanay dad shacab ah oo rayid ah oo Soomaali ah oo ay diyaaradaha Mareykanka ee droniska ah ay ku waxyeeleeyeen meel degmada Afmadow u jirta dhowr iyo 10 kilomitir. saddexda qof baareyno falkii waxashnimada lahaa ee maartay waxyeeleeyeen diyaaradaha droniska ah dadkan oo sida xildhibaankii hore uu sheegay waraabis oo jirto 18 kilomitir magaalada Afmadow lagu duqeeyay, markaas iyagoo ka caraabay magaalada Afmadow una caraabay deegaankooda waa adeeg ay ka soo doonteen magaalada iyagoo soo raadsaday ee noqdeen saacadii la duqeeyayna ee ahayd 5 saac yaqaano oo waqti dambe ah runtii oo u dhowdaa saqbarkii lagu duqeeyay halkaas loo sheegeen 2 gantaal in lagu dhuftay, gantaalkii hore la waayay, gantaalkii dambana lala helay iyagoo 4 qof ah, 2 dumar saddexdoodii kalena 1 dumar iyo 2 ragna ee dhaawacyo ka soo gaareen oo aad maarta halis u ah. Jamaala Xaaji Dhuubow oo 40 jir ah, waa qof dumar ah, dhibaatada ka soo gaartay gacanta bidixda oo hilibkii iyo muruqii ka goosatay iyo lugta bidixda oo ay ka dhaxbaxday firirka ilaa ay sinta kale uga dhaxbaxday. runtii aad u tabaaleysan oo dhibaatada ugu weyn soo gaartay ee taayada oo firirkii gantaalkii ee soo tuuray uu dhibka u geystay. 2 dhibane Cabdi Xasan Filiir oo 45 jir ah oo isagana firir ku jiraan jirkiisa oo gantaalkii ka yimid isagana ku dhacay. 3 Nuur Cabdi Xasan oo 57 sano jir ah isagana ah muxuu ahaa ka soo gaaray firiro dhabarkan firir kaga jiro, raajooyinkiina aad intusnoo daawateen, gacmahana firirka galeen, raajadan ay tustay firir inay ku jiraan jirkiisa, laakiin loo sheegay dhakhaatiirta yiraahdeen hadda lagama saari karo firiradana aad bay u fog yihiin. Mascuud Cabdullaahi, Aadan TV-ga Universal, magaalada Kismaayo. wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ku qabatay munaasabad lagu weyneynayay maalinta naafada adduunka. Cumar Maxamed Soomane ayaa ka waramaya warkan.
saddexda bisha disembar sanad walba waxaa daafaha adduunyada lagu qabtaa xaflado lagu weynaynayo maalinta caalamiga ah ee dadka naafada ah ama baahiyaha kala duwan qaba magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay xaflad ay ka qaybgalayeen xubno ka tirsan golaha xukuumadda ururada naafada qaranka soomaaliyeed iyo qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho xafladan lagu xusayey saddexda bisha disembar waxaa si wada jir ah u soo qabanqaabiyey wasaaradda haweenka xukuumadda soomaaliya oo kaashanaysay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda dalka maxamed cabdisalaan diiriye oo ku hadlayey magaca dadka naafada ah ee xafladan ka qaybgalay ayaa ka warramay baahiyaha ay qabaan iyo waxay uga baahan yihiin bulshada ay ku dhex nool yihiin waa inaan helno markaa si aan naafanimada looga baxo bulsho na caawis inaan helno dowlad na caawis inaan helno in awey aan iisheeg u helno wadajir inaan u helno okay marka waxaan rabaa simbali waxaan u baahannaha insha allahu tacaala inaan gaarno waxa weeyaan in dastuurka uu noqdo dastuur na siiyo equality na siiyo dastuur aan ka helno cadaalad inaan maarta ii sheega ka helno dastuurna sii karo ii sheega xuquuq dhaqaalo mid dhaqan mid bulsho intaba agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda soomaaliya dr deeq saleebaan yuusuf ayaa dhankiisa cabiray ahmiyadda ay maanta ka dhigan tahay in la qabto xaflad lagu weyneynayo saddexda bisha disembar maalintani muhiimadda ay leedahay waxa weeye inaan xasuusino xuquuqda asaasiga ah ay nagu leeyihiin dadka baahida gaarkaana haddaad maanta magaalada xamar ama deegaanada soomaaliyeed aada soo booqato waxaad arkaysaa deegaano badan dhismooyin badan oo ka socda cusub iyadoo dhismooyinkii horena dayactir lagu hayo haddana markaad eegtid dhismahaa socdo iyo mashaariicdaa socoto kama turjumayso mid maaragtay dabooleysa baahida dadka baahida gaarka ah taasna mid la qaadan kara maaha waana mid u baahan in isbeddel lagu sameeyo wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda soomaaliya deeqa yaasiin xaaji yuusuf oo xafladan soo xidhay waxay tilmaantay inay diyaar u tahay inay wax ka qabato baahi walba oo soo wajahda dadka naafada ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya waxaan idin ballan qaadayaa baahidiina sida u sheegateen inaan idinku garab taagnaano wax alla wixii ma aragtay annaga dhinacayna ku xiran oo ma aragtay meel alle meeshaan albaabka u garaaci karnana inaan suubino shuruuca ka hadasheen run waaye xaq hadduu maqan yahay shuruuc ayaa ma aragtay hagta waa run hay-ad aad ka dhawaajiseen hay-addaasna waxaan aaminsanahay wasaaradihii iyagoo shaqadooda qabanaya haddana codka oo ma aragtay inuusan basiiro keliya inaysan noqonin cabdiraxmaan keliya uusan noqonin laakiin ay noqoto hay-addii ma aragtay annaga pressurna saari lahayd xuquuqdiina raadin lahayd cumar maxamed somane universal t v muqdisho dhinaca kalena munaasabad taasi la mid ah oo lagu xusayay maalinta naafada adduunka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya munaasabadaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya cabdicasiis ibraahim axmed okey ayaa mar kale faahfaahintan inoo eegaya soomaaliya oo ka mid a dalalka ay ku dhibaataysan yihiin dadka aan lixaadkooda dhammaystirneen islamarkaana ay ku soo kordhayaan dadka waxyeelada kala duwan ku naafoobaya ayaa maanta u dabaaldegtay maalinta naafada adduunka ee 3 Disembar waxaana munaasabadda lagu xusayay maalintaasi soo qabanqaabisay Rajaqad Foundation waxaana ka qayb galay xildhibaano wasiiro iyo dadka aan lixaadkooda u dhammaystirneen iyo qaybaha bulshada xubnaha dadka maalintooda loogu dabaaldegayay magaalada muqdisho ayaa madasha ku soo bandhigay baahiyaha gaarka oo ay qabaan waxaana ay si dareen leh cod dheer dowladda iyo caalamka ugu baaqeen in loo gurmado dadka aan lixaadkooda dhammaystirnayn afkayga waxba geli karo dharkayga ma xidhan karo waxaan u baahana wax qabad in la caawiyo suubabaadi naafoo dhan waa noocaas waxaanu soo istaagay aniga naafada ninkii gacmale gacma u leeyahay soo maha ninkii lug dhutaa luga ka go-an lugna waa ku dhutaa soo maha war anigu maxaan ku qaban karaa walaa xildhibaan walaa barlabaan wasaare duqa magaalada yaa beelko no
way isku dhex jirnaa waxaan codsanayaa oon dowladda ka codsanayaa iyo inta xibnaha ah oo waxaa iyo walaa naafo in dadkan burburka oo ulaha alla kuwada ku tubaayo oo dabada ku siqaayo xubnaha guddiga xuquuqul insaanka baarlamaanka Soomaaliya kan arrimaha bulshada iyo difaaca iyo xubno kale ayaa hadallo dareen ka muuqda uga hadlay baahiyaha gaarka oo ay qabaan dad marka anagu haddii aan nahay baarlamaankii khaasatan waxaan ugu baaqayaa dowladda inay dadka waxaana lagu dadejin karaa in loo sameeyo wasiirka naafada in loo sameeyo loona magacaabo baa lagu dadejin karaa maxaa yeelay haddii aan la helin dad u shaqeeya oo wasaarad u taagan oo u shaqeysa haddii aan la helin dadkan waxa weeyaan siday tahay looguma dhammayn karo waxay u baahan yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Saalax Armaan ayaa ka dhawaajiyay in dowladda ay ka soo dhicin doonaan xuquuqda dadka aan lixaadkooda dhamaystirneen dadka baahiyaha gaarka qabo waa in il gooni ah lagu fiirshaa waa in si gooni ah looga taxadaraa waxaan u malaynaa waddankan isbeddel badan ku imaan doona uu ka dhawaajiyay waxaan u malaynaa roob badan noo do'i doono amni waa heli doonaa haddaan adinka idin hormarsiino laakiin adinka hormarsiino dadkii lixda lixaad qaba oo socon karay markaan qofka aan ka hormarsiino wax badan anagu arki doonaa Cabdicasiis Ibraahim Maxmed Oke TV Universal magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta booqday garoonka kubadda cagta ee Banaadir ee magaalada Muqdisho iyadoo garoonkaasi u diyaar garoobayo martigelinta tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo kan gobolka Banaadir wariyaheenna Qadra Cabdicali ayaa ka warramay sawirkan wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Khadiij Qatay garoonka istaadiyo Banaadir oo dayactir muddooyinkani lagu waday kaasoo dhawaan lagu qaban doono ciyaaraha maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir wasiirka ayaa booqashadiisa waxaa ku weelinayay xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waxaana saxaafadda garoonka gudihiisa kula hadashay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadiija Maxamed Diiriye waxaa jira culaysyo fara badan oo saaran intii muddadii tartanka ay u diyaar garoobayeen dhammaan shanta dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir ciyaartaas ku jirtay tababarka waqtigii intaas u dheeraaday ayaan hore dib u dhac oo dhacay haddana mar kale inaan la samayn karin marka waa naga go'an tahay aniga wasiir ku-xig agaasimayaasha waaxyaha iyo la taliyaasha wasaaradda in waqtigeedii la qabto hal la qabto ay dhacdo maadaama culayskaas faraha badan oo wada saaran yahay dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaan aad xiriirka kubadda cagta qaranka Soomaaliyeed oo si weyn dhinaca farsamada hawshan baaxadda uu ku leeyahay ka sokow mid tahay in naga aqbalaan garoonkii dayactirkiisii oo maadaama ay si gaar ah ay gacanta ugu hayaan laguna og yahay intii burburku jirayna ay gacanta ku hayeen loo samaynayo maalintaas xiriir u leh isaga ayaa samaynayo wasaaradda goobjooga ka ahaanaysa dabcan gobolka Banaadir iyo waa meesha markaas iska leh ayaa number 1 ah cidii marka isku aadka kooxaha ku soo bixi doonto qorituurkay ku soo bixi doonta idinka goobjooga oo dadka Soomaaliyeed dacali telefishinka Universal magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa hirgeliyay xafiiska adeegyada oo markii ugu horeysay dawladda hoose ay yeelanayso adeegan sidoo ku waramayo wariyaheena Nuur Maxamed Cali gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa si rasmi ah xariga uga jaray xafiiska adeegyada oo uu maamulka gobolka Banaadir soo kordhiyay xaruntiisa dhaxana ay noqonayso aqalka dawladda hoose ee Xamar xafiiskan waa mid ku shaqeyn doona hanaanka casriga ah ee tiknoolajiyada horumartay adeegyada uu qaban doonana waxa warbaahinta la wadaagay duqa Muqdisho Taabid sida aan la socono adeegaas maanta aan qabanayno
oo aan maanta dah furayno waxaan ka furnay headquarterka ama xarunta aqalka dawladda hoose oo maanta aan ka diiwaangelinay adeeggaasoo laba qaybood kale ah qaybta koowaad oo ah in mudnaanta marka ugu horraysa laga siiyo maamulka dawladda iyo dadka ganacsada aan ugu baaqi doono ayagana in mudnaanta koowaad la siiyo dadka baahiyaha gaarka qabo oo ay heli karaan xafiis ee adeegga loogu qabto oo adeegga ay ka soo qaataan ta labaadna waxay tahay dadka kale ayagana inay xafiis oo qaybta hoose u daadegi karaan oo adeegga looga soo samayn karo maanta meesha aan ka daahfurnay waa xarunta aqalka dawladda hoose ee muqdisho waxaana u daadejin doonnaa uu adeeggan gaari doonnaa 17 degme ee gobolka banaadir oo dhan ayaa adeeggan sidaan looga qaadan doonaa insha allahu tacaala waxyaabaha adeegga muhiimka uu ku yahay waxay tahay adeegyadii maamul gobolka banaadir iyo dawladda hoose xamar uu qaban jiray oo ahaa adeeg ku salaysan dukumentiyada ama waraaqadaha ayaa maanta waxaan u beddelnay inuu noqdo adeeg ku shaqaynayo sistamka awtomaatiga ah oo sistem loo isticmaali doono tusaale ahaan qof walba oo wax samaysto wuxuu heli doonaa rasiidkaas waxaa ka horreeya rasiidkan aan soo qaatay waxyaabaha loo yaqaano boono ama number oo qofka uu goosto ama wax loo yaqaano token uu qofka goosanaayo oo uu sistamka ka baxsanayo taas markii qofka loo gooyey kan kadib iyadoo nambarkiisa uu haysta ayaa qofka loo yeeri doonaa haddana wuxuu sii mari doonaa broseeskii ahaa ilaa ugu dambayn qofka uu helo rasiidkii iyo sidoo kale shahaadadii ee shatiga kala duwan ama adeegyada kale tusaale ahaan shahaadada hadda hortiina taallo waa shahaadada oo shatiga adeegyadaas kala duwan ayaa lagu qaban doonaa isla markaas marka gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu tilmaamay in adeegan looga gol leeyahay in bulshada ay hesho adeegyo hufan isla markaana la yareeyo ama gebi ahaanba meesha laga saaro wax kasta oo musuq keeni kara si arrinkaasi uu maamulka gobolka banaadir uga miro dhaliyana waxa uu sameeyay nambar ay bulshada ku dhiban bixinta laaluushka ay si toos ah ugala soo xiriiri karaan xafiiska duqa muqdisho annagoo iskaashanayna musuqmaasuqa maamul keliya ma ciribtiro bulshada ayaa la ciribtirta sidaa darteed bulshooy muwaadinow muqdishaawiyow haddii aad la kulantay musuqmaasuq fadlan nagu soo wargeli adigoo isticmaalaysa adeegga nambarka oo nambarka aad naga soo wacay si toos oo ah 86 52 52 waad arki doontaa asagoo meesha ku qoran nambarkaasna wuxuu toos ugu dhici doonaa xafiiska duqa magaalada oo laga kontarooli doono qof walba oo soo sheega musuqmaasuq qofkaas oo lagu caawin doono in musuqmaasuqa la ciribtiro tilaabo sharciga waafaqsanna laga qaado toosa ugala soo xiriiri karaan xafiiska duqa muqdisho xafiiskan waa mid fududayn doona adeegyo badan oo dadka ku nool gobolka banaadir ay helidooda kala kulmi jireen dhibaato fara badan shaqo maalmeedka xafiiskan waxaa sheeda kala socon doona duqa muqdisho iyo maamulkiisa nuure maxamed cali universal t v muqdisho shirka tayeenta hay-adaha dowladda xoojinta wada shaqaynta xukuumadda iyo dowlad goboleedyada ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho nuur siduu ku warramaya waryaheena munasar maxamed cabdi muddo 2 cisho ah oo ay mas'uuliyiinta dawladda iyo kuwa dowlad goboleedyada ka shirayeen tayeenta hay-adaha dawliga iyadoo lagu halbeegayo wada shaqayn iyo horumarin ka reebtoon musuqmaasuq iyo nintuuxsi ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho shirkan oo buddhig looga dhigayay 3 qodob oo kala ah doorka dumarka iyo hay-adaha dawladda tayeenta hay-adaha dawladda iyo hirgelinta u adkaysiga marxaladda isbedelada ee waddanka ka dhaca qodobadii ka soo baxay shirkan waxaa warbaahinta u akhriyay agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala qodobka koowaad ka qaybgalayaashu waxay isla garteen baahida loo qabo in la helo sharciyo iyo siyaasado qeexan oo kala xadida siyaasadda iyo maamulka hay-adaha dawliga ah qodobka labaad madashu waxa ay soo jeedinaysaa in ahmiyad gaar ah la siiyo in mas'uul kasta oo loo magacaabayo mas'uuliyad loo tixgeliyo xirfadda iyo aqoonta uu leeyahay shaqada iyo xafiiska loo magacaabayo madashu waxa ay ku boorisay in dhammaan maamulada kala gedisan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay kala faa'iidaystaan dhexdooda xirfadaha iyo waayo aragnimada iyaga ku dhex jirta madashu waxaa isla garatay baahida loo qabo in la kordhiyo tayada iyo xirfadda shaqaalaha ka howlgala hay-adaha kala gedisan ee dawliga ah madashu waxa ay ku boorinaysaa xarumaha waxbarashada sare ee dalka in ay ku saleeyaan manaahijtooda baahida xirfadeed ee ka jirta dalka isla markaana ay dib u qiimeeyaan tayada ardada ay soo saarayaan
madashu waxay isla garatay ahmiyadda ay leedahay in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed ee xirfadle ah uu ka shaqayn karo deegaan kasta oo ka mid ah dalka iyadoo aan lagu xadidaynin gobol iyo deegaan gaar ah balse loo tixgelinayo aqoonta iyo xirfadda uu u leeyahay shaqada uu qabanayo. shirkan oo uu soo qaban qaabiyey xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa gunaanadka ka hadlay soona xiray xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha maxamed kaynaan wuxuuna sheegay in shirkan dhammaan qodobadii ka soo baxay uu hirgelinteeda leeyahay xafiiska ra'iisul wasaaraha sida ugu dhaqsiyaha badan oo saacado badan isla joognay kulankan muhiimadda uu leeyahay horaa looga hadlay iyo sababta iskugu nimi aniga waxaa muhiim ah si gooni ah raba inaan idinku adkeeyo insha Allah wax kasta oo khaldaad ah oo yaryar ama waaweyn ee meesha ka dhacay anaga mas'uulka anaga shirarkan soo qaban qaabayna marka waxaan ka gabanayna ma wixii khaldamay waraaqan idin soo diri doonaa oo evaluation ah waad noo soo xiriirin doontiin wax kasta aan ka qaban karana waa ka qabanayna si aan aysan u dhicin marka dambe aan dib u kulanno marka taas waan idinka hagaajin doonaa insha Allah midda xigta runtii waqtiga aad nasiiseen oo muhiimka ah inaan idinka mahad celiyo dabcan dowlad goboleedyada madaxda ka timi heer wasiir iyo heer agaasime iyo inkasta waa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin inaad waqtigaa soo gelisaan aad noo imaataan munasar maxamed cabdi universal t v muqdisho xubno ka tirsan golaha wasiirada Somaliland ayaa maanta ka qayb galay munaasabad soconaysay muddo 2 maalmood gaar ahaan munaasabadaasi waxaa looga hadlayay hay-adaha SIRC iyo sidoo kale CDCH doorkii ay ka qaateen doorashadii ka qabsoontay Somaliland waryaheena Cabdirashiid Cabdihaab Xuseen ayaa ka soo hadlay Hargeysa waxaa maanta magaalada Hargeysa ka furmay shir ballaaran oo soconaya muddo 2 cisho ah shirkaasi ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay'adda SIRC oo fadhigeedu yahay dalka Sweden oo gacan ka helaysa isla markaana kaashanaysa hay'adda kale CDCH waxaana lagaga wada hadlayaa sida wacyigelintii iyo tababaradii hay'addu hore u soo qabatay waxtar uga geysteen doorashadii waddanka ka dhacday 13 November gaar ahaan sida dadka tamarta darani u muujiyeen doorkooda ka qaybgalka siyaasadda shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada jaamacadaha ururada bulshada xildhibaanada labada gole wakiilada iyo guurtida xubno ka tirsan golaha wasiirada Somaliland iyo waliba marti sharaf kale ugu horreeyna waxaa shirkaasi hadal ka soo jeediyay isla markaana faahfaahiyay ujeedada kulankani xasan aadan cabdi nuur oo ah xiriiriyaha hay'adda CDCH kulankeena wuxuu daaran yahay in aynu soo gabagabayno hawl 2 sanadood u dambeeyay in badan oo idin kamid laga yaabo inay soonuga soo qayb gashay oo la xiriiday xoojinta cilmigan madaniga la yiraahdo iyo dabcan xuquuqul insaanka sanadkii hore iyo sanadkanba waxaan halkan ku kulannay kulamo aynu wax kaga dhageysan jirnay macallimiin ay kamid ahaayeen Dr. Uluf ujeedaduna ay ahayd in la xoojiyo ka qaybgalka talada dalka dhinaca kalena isagu waxaa halkaasi ka hadlay Cabdilaahi Jaamac oo agaasimaha mashaariicda hay'adda SIRC ee fadhigeedu yahay dalka Sweden ujeedada mashruuca wuxuu ahaa in taa la sii xoojiyo oo laga xoojiyo xagga xuquuqda insaanka marka 3 sano khubaro mataqaana ka socota jaamacadda Lund University iyo hay'ad la yiraahdo Stockholm Policy Group ayaa cashar ka bixinay kulankan maanta waa gabagabo aan gabagabanayno 3 sano waxaan ku rajo weynahay inaad ka faa'iideysateen ama inaad ka faa'iideysateen ujeedada ugu weyn waxay tahay Somaliland xagga ammaanka dimuqraadiyadda iyo xuquuqda insaanka taasoo muujinaysa elashiga ugu dambeeyay oo ka dhacay Somaliland gabagabadina waxaa ka hadlay shirkaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Cabdilaahi Ibrahim Habane Cabdilaahi Dheere in macluumaad muddo badan soo socday la soo gabagabeeyo oo maanta iyo berri aad ka doodi doontaan maantana cashara ka bixi doonaan berrina wixii macluumaad aad isweydiinaysaan iyo wixii su'aalaha iska weydiin doono marka walaalayaal waad ka doodi doontaan mudduu soo socday CDCH way mahadsan yihiin Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa
kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey maalinta naafada adduunka. waryaheena maxudiin xusni oo ku sugan magaalada baydhabo ayaa warkan inoo soo diray. kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed xasan fiqi, wasiirada wasaaradaha gargaarka, masiibooyinka, haweenka iyo ururka naafada koonfur galbeed hogaamiyaashooda ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey maalinta naafada adduunka oo ku beegan 3 Diseembar. shariif mukhtaar cali oo ah gudoomiyaha naafada koonfur galbeed ayaa goobta ka sheegay dhibaatooyin iyo caqabadaha haysta dadka naafada ee ku dhaqan koonfur galbeed. la katababara muaskar inagata haddii nagadaas qiibto naafada caadiga ah kuwa bareliska ah hendhooliyaalka dugsiga hendhooliyaalka dhagooliyaalka kulli la suubiya fanaana maadaama santarka adlankalnaa naafada maykua meelaha katoosan jahama leh maybalankas meyle inta deganti inta la siinka kooye inta wala siin ku bare dad badan oo walbarasho suubi fadawa in kooye haniila hariireen markuu mayleyn inta wala siinka suubiyaan ununa maykua santara tuur jee galanta kaayno naafada wala gogo ardeed inta korta bare ijaarna magala koro tabartaano mano saas daraadiya madaxdana kusmii madaxweynaha fadhi wasiiradii wasaaradii kulli fadhiyaan may fadaana in santarkaasi qadhaqsi badan lana ogolaado in gargali wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka maamulka koonfur galbeed binti ibraahim cali oo kulanka soo qaban qaabisay ayaa maalintan muhiimadda ay u leedahay naafada ka sheegtay goobta. dad la gargaarana dadkii mudnaa maanta ay joogtaa waayo dadka curyaamiinta ah curyaan lagama noqdo lixaadka lagama noqdo lugaha gacmaha lagama noqdo indhaha caqliga qofka waa beeli karaa lixaadka isagoo taamo ilaahay abuuri karaa curyaan waa ka dhigi karaa laakiin wuxuu u baahan yahay mooral ahaan qofka in lala shaqeeyo xuquuqdiisa inuu helo waaye sida badan waa la sheegay inuu waxbarasho helo inuu caafimaad helo inuu tababar helo inuu shaqooyin helo. gabagabadii kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ahna wasiirka beeraha iyo waraabka maxamed xasan fiqi ayaa sheegay in maamulka uu mudnaantooda siin doono dadka curyaamiinta ah. wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka xukuumaddan koonfur galbeed iyada ayaa u qaabilsan inay curyaamiinta iyo masiibooyinka maareeyaan. xukuumadda koonfur galbeed waxaa ka go'an cid kasta oo dhibaataysan oo shacabka koonfur galbeed ka tirsan marka laga soo bilaabo meesha koonfur galbeed baraawo iyo xuduuddeeda markaan idhaahdo ilaa iyo ceelberde iyo xuduudka intuu dhexayso xil waxaa naga saaran yahay qof kastoo dhibaataysan markaa maba ku sii jiraanba curyaamiinta xuquuqdooda xoogaa lagu haystaa siday dadku u ordaan uma ordi karaan meesha wax lagu qaybsanaa wax kama heli karaan. maxudiin xusni universal TV baydhabo. weli waxaad la socotaan warka telefishinka universal wuxuu si toosa idinkaga imaanayaa stuudiyahayna ku leenahay magaalada muqdisho. ugaas maxamed ugaas jaamac oo ka mid isimada soomaaliyeed ayaa maanta waxaa lagu caleema saaray degmada shaxda ee gobolka karkaar. waryaheena maxamed madani oo boosaaso jooga ayaa warkan halkaasi ka soo diray. munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu caleema saarayay ugaas maxamed ugaas jaamac baruur ayaa ka dhacday degmada shaxda ee gobolka karkaar waxaana munaasabadda caleemasaarka ka qayb galay hogaamiye dhaqameed aqoon-yahan dhallinyaro iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ah. qaar ka mid a waxgaradkii ka hadlay munaasabadda caleemasaarka ayaa ugaas maxamed ugaas jaamac baruur u rajeeyey in alla u fududeeyo shaqada dhaqan ee loo igmaday. anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada shaxda cabdilaahi cali waxaan salaamayaa awalka ugu horeeya ugaas maxamed ugaas jaamac baruur oo xafladiisa maanta aan ku hayno degmada shaxda. waxaan kaloo salaamayaa ka soo qaybgalayaasha sida caaqiliinta nabadoonnada. ugaas jaamac maxamedow waxaa lagugu caleema saarayaa degmada shaxda oo dalkaagiya oo dadkaagu joogo. waxaan ku leenahay mar la saddexaad ku soo dhowow ugaasnimada maanta aanu kugu caana shubayno. inuu dadkiisa iyo dalkiisa wax anfaco ilaahay baan uga baryaynaa, cimrigiisana uu dheereeyo, diintana u furo oo u badiyo baanu rabbi u baryaynaa. cabdulaahi ciise dhagax jare oo ka imi
degmada yibaayil halkana maanta waxaan ku caleema saaraynaa ninkaa hore magaciisa aan u soo sheegnay ugaas maxamed ugaas jaamac baan ku caleema saaraynaa degmada shaxda maantay annaga oo ah ummad badan oo meelo badan isaga timi carab iyo soomaalina leh madaxda soomaalidow kii lamaad shay noqo intii ka maarantiyo xaasidkaagu maqan maalig meeshaad madhaba moose kaaga furo inaad ugaaskayaga noqoto inaad wiilkayaga noqoto inaad nala joogto inaad dalka iyo dibaddaba nooga waxgasho inaad insha allahu bidmillaahi tacaalaa aad noqoto run inaad noo sheegto run inaynu ku wada shaqaysanno waxaana intaasi kadib lagu caano shubay ugaas maxamed ugaas jaamac baruur ugaas maxamed ugaas jaamac baruur ayaa mahadcelin ballaaran oo u jeediyey ka qaybgalayaasha caleemasaarka kadib wuxuu ballan qaaday inuu si hufan u gudan doono waajibaadka dhaqan ee loo egmaday marka walaalayaal waa mahadsan tihiin sida sharafta leh aad ii soo dhowayseen ilaahay waxaan ka baryey subxaanahu wa tacaalaa ilaahay idankiis soomaaliya inay isku hagaagto 10 sano ama 5 sano ii dhimanna ilaahay waxaan ka rajaynayaa in nin ummadda Soomaaliyeed u gargaaro oo tabliiq ah oo dadkoo dhan u dhaxeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala taasan ilaahay ka baryey marka ugu horeyso waxaana caleemasaarka ugaaska cusub uu ka dhigan yahay in ugaas maxamed ugaas jaamac si rasmi ah ugu soo biiray odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed maxamed madan Universal TV Boosaaso xaflad ay ku qalin jibinayeen 20 arday oo dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka ayaa lagu qabtay dalka Koonfur Afrika warkan waxaa halkaasi ka soo diray waryaheena Ciidruus Cabdi Xasan xafladani oo ahayd qalinjibintii lixaad ee madrasooyinka Albayaan iyo madrasada Al-Rahma oo simaada dalada culimada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika iyo iskuulka Muslim Mayfair School ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa lagu qabtay xaafadda Soomaalida ee ka degan tahay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxaana ka soo qayb galay waalidiinta carruurtooda ee ka qalin jibinaysay Muslim Mayfair School iyo madrasooyinka tacliinta Qur'aanka Kariimka lagu bartay ee Albayaan waxaana qalin jibiyay 20 arday oo kamid ah ardayda wax ka barata madrasooyinka Albayaan iyo Al-Rahma ee hoos yimaada dalada culimada Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika xalfadda intii ay socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxyaabihii ay ka barteen ardayda madrasooyinka ay wax ka baranayeen ardayda iyo waalidiinta ayaa waxaa la dardaarmay gudoomiyaha guddiga fulinta ee culimada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika Sheekh Maxmuud Maxamed Adar hadaladiisana waxaa ka mid ah xilliga aad joogto ayaa ka faa'iideysasho u baahan xilliga soo socda waxa ku anfici doonana waa wixii aad kala tagtay xilliga maanta aad joogto sida aad u maaraysay ee uga faa'iideysatay sidaan marar badan tilmaanay ama xafladaha ka tilmaanana ardaygu wuxuu u dhaxeeyaa 3 qaybood maamulka iyo madrasada iyo macallimiinta oo qayb ah waalidka oo qayb ah iyo bulshada uu la nool yahay oo qayb saddexaad ah saddexda qaybood isku dhinac hadday u socdaan waa adag tahay ardaygaasi in uu horumar ama mustaqbal wanaagsan yeelan waayo oo wax iska adag waxaan kula dardaarmi lahaa dadka ku hadla luqadan aan ku hadlo oo ah inta ugu badan ee madaaristan hadda xafladda halka kule ee dhigata in tarbiyada iyo tacliinta kale xilka iyo xoogga ay saarayaan mid aan ka yaran ay saaraan guryaha markay joogaan carruurtoodu inay barato afka Soomaaliga arrintaas waa arrin muhiim ah carruur fara badan oo aan aqoon baa jira haddii hooyo Soomaaliya dhalay luqada ay ku hadlayaan waalidkuna waa luqadaas waxaa laga yaabaa luqo kale inaanay aqoonin ardayguna ma yaqaano luqadaas arrintaas waa ceeb iyo qoolxumo waaye dhanka kale xalfadda markii ay ka soo idlaatay hoolkii lagu qabanayay ayaa masaajidka Imaam Shaafici ee xaafadda Soomaalida degan tahay waxaa lagu qabtay shahaado guddoonsiinayay ardayda dhameysatay Qur'aanka Kariimka ah ee madrasooyinka Al-Rahma iyo Universal qaar ka mid ah waalidiinta Qur'aanka ilmahoodu ay dhameeyeen ugu dambeyn waxaa TV-ga Universal la hadlay maamulaha Muslim Mayfair School iyo madrasada Albayaan macallin Basbaas waxa uu sharaxayaa xalfadda la qabtay maanta waxyaabihii looga gol lahaa loo qabtay waxay arday qalin jibinaysay arday Qur'aanka dhameysatay sanadkan oo gaaraysa 20 arday oo ka kala socda labada madrasa iyo fasalka grade R ee ka qalin jibinay arday ka qalin jibinaysay u gudbayeen grade 1 Ciidruus Cabdi Xasan TV-ga caalamiga Universal Johannesburg Koonfur Afrika
magaalada London ee dalka Ingiriiskana waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayay dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee sidoo warkan ku soo diray wariyaheena Cabdirashiid Rashka oo jooga London xareer la saaray xasaniyoone xuseen abkoodo xaasidiintii xuskaada diideen xabiskoodii xudaama waaye kulankan ay iskugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan waxgaradka culimaadudiinka Soomaaliyeed ayaa ujeedkiisu ahaa mid lagu weyneynayay sidoo kale lagu xusayay dhalashada nabiga Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaana kulanka intuu socday halkaasi lagu soo bandhigay qasiidooyin iyo waliba nabi amaan kaasoo lagu dal lahaa in lagu nooleeyo taariikhda nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam rabbi salli ala al-habib Muhammad وعلى الآل منهم culimaadudiinkii halkaasi ka hadasha ayaa marka hore ka dhawaajiyay marxaladihii kala duwanaa oo soo maray moolidka waxaana intaasi ay ku dareen in mar waliba loo baahan yahay in la xuso xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam meesha waxaa noo joogta rag adilaad ah culimadii waaweynada meesha noo joogta oo caawa aan rajeynayno insha Allah inay naga qabtiraan مسائش كصاب سنة لأن مولد كاحتفال النبي عليه الصلاة والسلام محبة الرسول ك وحيابها كوا سيد النجو واجب كتهاي هدي لهاي دمه قفك مدمدو وجيرو إن شاء الله وحرمنا قلبي يسوين وفرتو هدي لهاي دمه قال إلهي أيوة هاي نحريس إلهي أيوة ها وحوها مد واجب أي تهاي إن أنو كجع لانه نفتينا يا أولادينا يا والدكينا يا خالهينا يا وحان لين هردن إن النبي كجع لنا واجبه mar haddii sidaas tahana inaan had iyo jeer ala xasuusanno oo maaragtay xafladihiisa aan kor u qaadno oo wax kasta ay nagala fadli badnaadaan waa asaas wax sidii keenayso sidaas waaye nabigeena mukhtaar haddaan annaga ammaanta qaarkood waxaana leeyahay bariga waa gaalowdeen diintaad ka baxdeen waxaad ku gaarsiiseen laakiin rabbul ciza ma huu gaarsiiye annaga maba gaarsii karno maxaa yeelay rabbul ciza أسماء إلهي قيب كمدة على جمعة عابد بالمؤمنين رؤوف رحيم والله بس فوق إلهي ياكم مجعابا رب العزة أصحابكم مجعابن بني آدمكم مجعابن ذاك لكم مجعابن رب العزة درجات جرسي أنت كبدا شرفت إليهن نبي محمد وحد قد بيسين إلهي يا أبو حو جرسي أسماء ديسي صفة كمدة وكم مجعابا بل صفات كمدة أو بإلهي النبي كل جيس كم مجعابه أو محل رجع رحمة إنه يا النبي مولود كفير محق دحس على فيري إخوتي في الله نبي إنه وجع الله وحسينا 24 سنة وحسينا معلمها جاركو فرحة ودشنا وبكسي وين تفرحة وزيادة إنتان هالماني هل كمان لام سوينا ما حسينا معنا هذا ما هنا وفرح زيادة أدوك لما يكون فرحي تاريخ أدونك بدلي isbedel ayuu keenay ilaaha jeclaaday waxaan hanii'an lakum bagaysi wuxuu u sugnaaday ninkii macnaha haddii ilaahay ku roon yahay ka soo qayb gala khayrkan iyo macnaha haddii ilaahay ku roon yahay barakaadkan iyo laxadaadkan wanaagsan waxa waaye waxaa hoogay ninka haddii ilaahay ku roon yahay khayru khalqillaahi macnaha farxaddiisa iyo sharafkiisa iyo macnaha haddii ilaahay ku roon yahay ka macnaha bidcoobay cabdirashiid maxamed nuur cabdirashka universal TV London xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabelle oo kulan ku adeen magacaabista golaha wasiirada maamulkaasi Umar Maxamed Soomane ayaa mar kale ka waramaya xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa shir ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ee xarunta Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in ay ka hor yimaadeen 57 xubnood ee golaha xukuumadda dowlad goboleedka Hirshabelle ee dhawaan madaxtooyada magaalada Jowhar uu ka dhawaaqay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare cabdirashiid cabdiraxmaan warsame oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle kana qayb galay kulankoodan maanta uga qabsoomay magaalada Muqdisho waxa uu ka waramay sababta dhabta ah ee xilligan ku soo beegtay inay ka hor yimaadaan magacaabista golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweynaha anaga dooranay runtii si kalsooni aan ku dooranay doorashada aan dooranay waxaa noo muuqata marka hadda la joogo 3 bilood ka bacdi waxaa noo muuqata inuu yahay afhayeen heshiis gaar la galay
waxaa noo muuqata in dhaqaalihii yaraaye imaaraadkiiya laga helay dowladda federaalka ah hal waddo oo 50 mitir maahana wax kaloo ku qabtinaan la arag hal xafiis oo wasaaradda ay leedahay wasaaradda gudaha ayaa waxay leedahay hal xafiis oo ay ka xoogtay laftigeeda degmada sida ugu dhaqmaa noo muuqata waxaan noo muuqda qaababka uu u dhaqmahayo oo ah dawladdan oo laptop laga maamulo oo heedihii horumarinta iyo wixii dhaqaalaha bixin lahaa oo dhan kulli akoonna loo samaystay annagoo 3 bilood joogin waxaa noo muuqata godka iyo dhibaatada ay ku socoto Hirshabelle waxaan rabnaa in marka bulshada reer Hirshabelle inaan ogeysiino arrimaha noocaasa annaga ka xildhibaan ahaana ma aqbali karno haddaba markii shirkan uu soo dhammaaday kadib xildhibaanada baarlamanka dowlad goboleedka Hirshabelle waxa ay soo saareen war murtiyada ay ku cadeynayeen in ay diidan yihiin magacaabista golaha wasiirada waxaana ku dhawaaqay xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo baarlamanka Hirshabelle ka tirsan waxa magaalada Muqdisho ku kulmay xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle oo gaarayay ilaa 70 xildhibaan kala fadhigoodii ama kulanka iskugu yimaadeen kaasoo ujeedadu ugu weyn ahayd la xisaabtanka madaxweynaha waxay soo saareen war saxaafadeed qodobka koowaad kadib markaa aragnay in la jebiyey qodobka 56 farqadii 3aad ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle oo ku saabsan magacaabista iyo ansixinta golaha wasiirada qodobkaas farqadii 3aad oo sheegaya soo magacaabida iyo ansixidda waa in ay dhaafin 45 cisho marka uu la wareego madaxweynaha xafiiska qodobka labaad kadib markaan aragnay inuu la yimid matalaad ka baxsan tii loo idmaday kaas oo ka hor imaanaya qodobka 11aad farqadiisa 1 ilaa 2 kaasoo qeexaya awoodaha iyo waajibaadka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle kuna qancay inuu noqdo afahayeenka maamulada Umar Maxamed Soomane Universal TV Muqdisho jaaliyadda Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku dhaqan dalka Koonfur Afrika kulan ay ku yeesheen dalkaasi waxay kaga hadleen horumarka uu sameeyay maamulkaasi waxayna baaq u jeediyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Koonfur Afrika inay maalgashi ku sameeyaan deegaankooda deegaanka horumar ka socda waxaa kamid ah biyo gelinta waxaan arkay biyihii laga dhulka u dhaxaysa marayda maxaan ugu dhiita gunagado ee tegay ilaa marsin iyo biyihii laga soo qaaday danood oo ilaa iyo doolodha lagu faafinayo biyaha laga qaaday inay 300 kilomitir socdaan arrin yaab la weey horumarkay kamid tahay waxyaalaha aan soo arkay waxaa kamid ah wabigii weynaa ee dhexmar oo kala gooyay dadka Soomaalida iyo Oromada waxaa la saaray buundooyin aad u waaweyn shacabkeena waa u baxsadeen dadkiina aad bay ugu baxsadeen shacabkeena waa u baxsadeen buundooyin aan la yaabnay waxay ka soo wareegi jireen erar inta xagga kale laga soo maro heer laga soo wareego oo laga soo wareego xagga Oromada bartankeeda xagga maalin dhaweed ayaa isla saaray waxaa la saaray buundooyin aad u waaweyn oo baabuurta ku gudubto degmooyin cusubna waa laga sameeyay wax fiican ayaa loo qabtay ummadana waa horumarkay kamid tahay in deegaanka horumar buu gaaray waxyaalo badan buu ku tilaabsaday maba ka warqabno meesha locationadii baa lagu xariisan yahay in mar la soo booqdo oo la soo fiiriyo investment baa jiro maalgelin la sameyn karaa waa degi kartaa waad ka imaan kartaa waxyaalo badan baa jiro marka dhalinyarada waxaan ku boorinayaa hadda dhalinyarada wacyigelin badan baa la siiyaa dowlad deegaanka wacyigelintaas waxaa kamid ah inay shaqaysan karaan business samaysan karaan kow inay wax baran karaan waxbarashadoodii ay horumar ku gaari karaan ay dowladda u shaqayn karaan inay mataqaanaa meeshay doonaan aadi karaan taa ayada lafiyada waa horumar dhalinyarada ayaa waxaa mataqaanaa midnimada iyo sharafta ay ku imaan kartaa marka ugu horeyso inaan nahay dad barta ay ku sugan yihiin meel kasta adduunka ku sugan yihiin isku xiran yihiin waana iska warqabaan aynu gacmaha isqabsanno dalkeenna aynu ku aadno horumarka iyo nabadda iyo noloshana aan ka shaqayno adduunka waxaa aas-aasi u ah nolosha laydiin sheego haddii nabad la waayo nolol ma jirto nabaddu markay timaado yay timaadaa wixii ka dambeeya o dhan oo ah baadkii iyo biyihii BDSI maanta gamcaha isqabsatay oo hormartay meel walba ay joogaan South Africa gobol walba ay kala joogaan anaga gacantadan inala soo jaaday waqti dhow in ay oramadii dalkeeni ay dadkeeni aad u leynayaan oo dhibaato badan ay wadankeeni haysato oo barakac badan oo wadankeeni uu ku jiro
barakacaas iyo dhibaatada waddankeena maanta ka taaganna DDSI inay dadka South Africa jooga waddankan intayna joogtay inaynu gacanta isqabsano inaan dadkeena u gurmano inaan dalkeena u gurmano dadka ku barakacay inaan dadkaas dalkay sugayaan waa inaga waxa uu shaqaynaya ilmaha innaga waxaa dal inoo ah horumarka iyo nabadda iyo darnoo ciddii nabad aan wadina ilaahay asaamuyo ilaahay ha qabto waxaa jirtay biyo la'aan baa jirtay waxaa jirtay waxbarasho la'aan baa jirtay maanta alxamdulillah rabbil caalamiin magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu caleemo saarayay yuusuf kulmiye culusow waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay odayaal iyo waxgarad munasar maxamed cabdi ayaa ka waramay xafladan oo lagu caleemo saarayay gudoomiyaha guddiga maamulka iyo siyaasadda mudane yuusuf kulmiye culusow waxaa ka qayb galay odayaal waxgarad siyaasiyiin iyo marti sharaf kale waxgaradkii iyo hoggaanadii dhaqan ee munaasabadan ka qayb galay waxay sheegeen kuna dheeraadeen sida yuusuf kulmiye looga doonayo inuu uga soo dhalaalo mas-uuliyadda loo idmaday isla markaasna waxay sheegeen in rajo weyn ay ka qabaan shakhsiyaddiisa oo ay ku tilmaameen howlkar intaas waxaa la diyaarinayay oo la xulayay qofkii xaaji mare lagu bedeli lahaay guddigii maamulka waa soo xuleen nin mataqaanaa waxay keeneen booska miro buuxsha odayaasheenna dhaqanka waa loo yeeray waa aqbalnay waa soo dhoweynay waa u ducaynay waa caleema saarana annaku waxaan usoo gudbinay bahweynta soomaaliyeed oo kala gedisan oo soomaaliyadoo fadhida beesha noo soo aabushay xafladan aadka u qiimaha badan gudoomiyaha beesha abakar maamulka iyo siyaasadda waxaan rabaa marka hore inaan u duceyno oo aan u duceeyo oo ilaahay u barino odaygii meeshaan baneeyey mira cali cusuble ilaahay ha u naxariisto jannatulfardows allah ka waraabo innagana samir allah naga siiyo intaa kadib marka ku xigta waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo saaxiibkay yuusuf ilaahay ha ka dhigo xilka loo igmado kolba ninka inta abakar fiiriye uu soo saaray waa dareemi karaa waa nin culus culusow awowgiis ilaahay ha ka dhigaan leh waxaa aabihiisa haddana layidhi kulmiye kii soomaali kulmiye allah ka dhigo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda soomaaliya ciise wehliye maalin oo ka hadlay kulankani ayaa la dardaarmay gudoomiyaha la caleemo saaray yuusuf kiin waxaan leenahay anoo ku hadlaa magacayga iyo kollayba inta asxaabta aan nahay oo aan ka wakiil noqon karo waan kula shaqaynaynaa haggaa xudaaqi haggaa khadaaqaba haggaa xudaaqo waan kula shaqaynaynaa kaa yeeri weyno haggaa khadaaqana waan kula shaqaynaynaa waa saa rabni marka labadaba waa nagu tashanaysa waxaan leeyahay yuusuf dhibaata maantay ku tahay laakiin waa dhibaato la rabo waa dhibaato bini aadamka ay raadsadaan ay rabaan haddii uu xalliyo oo ku guulaystana maaragtay magac iyo wanaag iyo leh xataa hadduu isku dayo meel gaaro waa wax fiican ugu dambayn waxaa saxaafadda la hadlay yuusuf kulmiye culusow waxa uuna yidhi iyo xafladdii waxay ku saabsaneed waa la yidhi xafladdu ma ahayn mid oo dabaaldega ma ahayn mid la isugu hambalyeynaayo waxay ahayd mid waajibaad la isku siinayo la isku faraayo in ummadda midaynteedu uu noqdo saldhigga waxqabadkeeda munasar maxamed cabdi universal t v muqdisho jaaliyadda soomaaliyeed ee minnesota dalka maraykankana waxay u dabaaldegeen sanad guurada koowaad ee asaaska maamulka hirshabeelle siduu kusoo warramayo waryaheena deeq darajo jaaliyadda soomaalida ee hirshabeelle ee ku nool dalka maraykanka ayaa munaasabad isugu jirta dabaaldega sanad gurada koowaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo soo dhoweynta madaxweynaha cusub ee hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo golaha cusub ee wasiirada lagu qabtay magaalada minneapolis
minneapolis ee gobolka minnesota munaasabadaasi oo ay kasoo qaybgaleen qeybaha kala duwan ee jaaliyadda soomaalida sida culamaa udiinka waxgaradka haweenka iyo dhallinyarada ayaa waxaa lagu muujiyey taageerada loo hayo madaxweynaha cusub ee hirshabeelle iyadoo dadkii ka hadlay munaasabadaasi ay si isku mid ah u soo dhoweeyeen maamulka hirshabeelle aan wanaag badan aan ummadda aan farno annaga haddaan nahay qurba joogta mar walba waxaana saaran inaan ka shaqayno wanaaga isku xirka dadka sanadka hore markii madaxweynuhu horreeyey la doortay cali cabdulaahi cosob oo duco iyo guubaabo ah iyo soo dhoweyn haddana waa markii labaad hadda madaxweyne kale noola dooray marka waa soo dhaweynaynaa madaxweynahaasna waxaad dareemaysaa dadka shabeellada dhexe hiiraan degan inay yihiin dad nabadeed dad nabadda jecel mar walbana ka shaqeey badan waxaan u mahad celinayaa walaalihii qiimaha badnaa ee soo qabanqaabiyey xafladdan quruxda badan ee maanta lagu maamuusayo maamulka cusub ee hirshabeelle uu madaxweyne ka yahay maxamed cabdi waare iyo madaxweyne ku-xigeen cali guudlaabe iyo guddoomiye baarlamaan sheekh cusmaan barre waxaan leeyahay ilaahay ha ka dhigo kuwii garta xilkaa aad u culus ee loo igmaday noqdana kuwa ku haga reer hirshabeelle gaarsiiya horumar iyo barwaaqo anigoo ku hadlaya magaca guddiga qabaqaabada in aan idinkaga mahad celiyo imaatinkiinaan aad imaadeen xafladdan aan ugu talagalnay soo dhoweynta madaxweynaha cusub maxamed cabdi waare iyo sanad guuradii ka soo wareegatay halkii sano maamulka hirshabeelle waa mahadsantihiin anigoo ku hadlaya magaca guddiga caaway waa hameen farxadeed weeye soo dhoweynta hirshabeelle aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay soo dhoweynta lagu soo dhoweynayo madaxweynaha maxamed cabdi waare waxaan leenahay hambalyo 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 gobol walba waxaa dhisa qurbajooga marka haddaa ka seexataan dee ma shaqaynayso hadafkay lahayd hirshabelle ma gaarayso waa inaan annaga aan u kacnaa dhallinyaradan wiil la hadlayaayo insha allah wax maa $100 iyo $50 la aruuriyo wax badan bay qabataa maxamed muuse nuur deeq darajo university v minnesota warkaasi wuxuu idinkaga imaanayaa telefishinka universal markan qodobka ugu dambeeya ee dibadda xulafada uu hogaaminaya sacuudiga ayaa soo dhoweeyay in cali cabdalla saalax uu kasoo horjeesto kooxda xuutiyiinta xulafada uu sacuudigu horkacayo ayaa soo dhoweeyey hadal kasoo yeeray madaxweynihii hore yeman cali cabdalla saalax oo xogagiisu ay dagaal kula jiraan xuutiyiinta kaas oo wadahadal ku baaqay hadalka xulufadu ay soo saartay ayaa lagu sheegay in go-aankaasi uu yahay mid hogaanka qabanaya islamarkaana la safanaya rabitaanka dadka yemaniyiinta ah islamarkaana ka xoroobaya dhibaatada iyo dayacaadda ay wadaan ciidamadaasi master saalax wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay in bog cusub la furo haddii isbahaysigu uu qaado xanibaadda islamarkaana uu joojiyo weerarada laakiin xuutiyiinta oo ay jaal yihiin ayaa arinkaasi waxay ku tilmaameen mid khiyaano qaran oo ku sameeyey madaxweynihii hore ee dalka yemen guud ahaan daawadayaal waxaa intaa ku dhan warkii oo aad kala socoteen telefishinka universal anigoo maxamed cabdinaasir ayaanla ayaa warkeedinla socodsiinayay intaynu ku kulmi doono warka kan xiga sidaas iyo nabadgelyo